dalka Soomaaliya Dr. Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa markii uu soo gaaray magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub durba waxa uu soo dhaqaaqay sidoo xaruntaasi kulan ula qaadan lahaa ergeyga arrimaha dibadda u qaabilsan midowga Yurub Mr. Javier Solana ra'iisul wasaaraha iyo Javier Solana ay hadalkooda diiradda ku saarayeen sida ay uga hadli lahaayeen xaaladda ammaan ee dalka Soomaaliya imika ay marayso iyo sidoo kale meesha ay ku dambeysay dhaqaalihii kol hore loogu deeqay dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya si ay wax uga qabato xawlaha baaxadda weyn ee horyaala dawladdaasi uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Dr. Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ra'iisul wasaaraha ayaa ergeyga midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda iyo ammaanka Mr. Javier Solana uu soo gudbiyay warbixin ku saabsan xaaladda dalka Soomaaliya imika uu marayo iyo ammaankiisa iyo sida dawladdiisa uu isagu ka yahay ra'iisul wasaaraha diyaar ugu tahay inay wax badan uga qabato xaaladda ammaan ee dalka Soomaaliya ka jirta wuxuuna dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya uu soo gudbiyay Mr. Javier Solana sida ay dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ugu baahan tahay gargaar degdeg ah oo la soo gaaro si ay wax badan uga qabato xaaladda ammaan ee dalka Soomaaliya ay ka sii daraysa marba marka ka sii dambaysa isagoo dhinaca kalena dambaal ku aadan Javier Solana u gudbiyay kuna saabsan sida ay u soo dadajin lahaayeen midowga Yurub dhaqaalihii kol hore ay ugu baaqeen dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya inay ku taageeri doonaan taasoo badi aan si dhammaystiran loogu soo dhammaystirin dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya halka dhinaca kale Mr. Javier Solana ergeyga midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda iyo ammaanka isaguna shirkaasi uu ku soo gudbiyay sida ay midowga Yurub ugu heelan yihiin wax ka qabashada xaaladda ammaan ee ka jirta dalka Soomaaliya iyo isgarabtaaga dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee imika waqtigeedu ku eeg yahay 2 sano kulankaasi haddaba markii uu soo idlaaday ayaa isaguna sidoo kale waxaa jiray kulan uu qayb ka ahaa u qaabilsanaha midowga qaramada midoobay Mr. Walid Abdullah isaguna uu la yeelanayay Mr. Javier Solana kaasoo ku aadan isaguna xaaladda ammaan iyo midda guud ahaan dalka Soomaaliya ka jirta haddaba kulamadaasi guud ahaan waxaanu ka wareysanay ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya oo aanu kula kulannay xarunta midowga Yurub oo imika aan kala soo hadlayno waa kan ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid oo arrintaasi inooga warbixinaya kulanka runtii wuxuu ku saabsanaa arrimaha Soomaaliya dhowr meelood buu taabanayay dhinaca siyaasadda dhinaca amniga iyo dhinaca dhaqaalaha dhinaca siyaasadda runtii waxaan ka wada hadalnay sidii dawladdu gacan loogu siin lahaa in dadka mucaaradka ee waddanka jira nabad iyo si nabadgelyo ah loogu soo gelin lahaa dawladda in loo furo ilaaha dadka maaragtay aan wali ka qayb qaadan dawladda ee ka maqnaa shirka Djibouti in maaragtay siyaasadda dawladda ee ku wajahan in dalka goboladeeda wax loo qabto taageero la siiyo wadahay maxaa marka ka soo dhalaalay oo wada hadalladaasi iyo dhammaan waxaad ku wada hadasheen idinkii iyo madaxda midowga Yurub runtii aad iyo aad bay u taageereen waxay aan soo jeedin codsiga aan soo jeedinay waxaan filayaa bisha tan soo socota 15keeda in laga hadli doono arrinta Soomaaliya iskaga wada doono wadamada Yurub ku bohoway Yurub runtiina lagu soo qaadi doono waxyaabihii codsiga anaga aan keensanay runtii intii meesha aan kaga hadlay kulli waxay muujiyeen inay taageer u hayaan arrintaas arrinta amniga waxaan ka hadalnay dhaqaalihii markii horeeto loo yawahay ciidamada Soomaaliya sidii kuwaas oo aan wali qaar soo gaarin sidii loo dardargelin lahaa iyo arrimaha dhaqaalaha oo aan ka hadalnay runtii adduunku wuxuu markasta eedeeyaa burcadbadeeda runtii waxaan kala hadalnay in ciidamada maraakiibta joogta badda Soomaaliya ee shaqadooda noqon kaliya burcadada shaqadooda noqoto sidii badeena looga badbaadin lahaa dadka kan iska soo galo kalluunkeena ka xada badeena marka waxaan ka codsanay in maraakiibta joogta ay qayb ka noqoto shaqada ay qabanayaan inay ka ilaaliyaan in maraakiibta kalluumaysiga ay soo galaan badaheena taasna runtii waa naga aqbalay wuxuu runtii waan hordhigayaa waan rajaynaynaa in ayadana taas soo baxdo ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa sidoo kale waxa uu ka qayb galay shiray magaalada Brussels ee xarunta midowga Yurub ee waddanka Belgium ay ku lahaayeen International Contact Group kuwaas oo ay kaga hadlayeen xaaladda dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha shirkaasi isagu soo xiray ayaa waxa uu intii ka soo qayb gashay shirkaasi oo kala hadlay sidii ay u taageeri lahaayeen nabad ku soo dabaalida dalka Soomaaliya isagoo dhinaca kalena uga sheekay dhammaan mas'uuliyiinta International Contact Group ee halkaasi fadhiyay in xaaladda dalka Soomaaliya imika ay dhinaca bini'aadanimada iyo dhinaca ammaankuba ay tahay mid aad u liidato isla markaana loogu baahan yahay inay beesha caalamku isgarab taagaan
shirkaasi oo ay ka soo qayb galeen in badan oo ka tirsan beesha caalamka iyo midowda Afrika ayaa waxaa looga hadlayay marxaladihii ugu dambeeyay dalka Soomaaliya iyo sidii nabad loogu soo dabaali lahaa qaybaha guud ahaan siyaasadda dalka Soomaaliya isku haya waraysiga aan la yeelanay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo dhinacyo badan taabanaya ayaa dhinaca kale waxaan wax ka weydiiyay sida uu arko khilaafka la sheegay inuu u dhaxeeyo ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo sidoo kale madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ee salka ku haya heshiisyada kala duwan ee laga galay wadamada Djibouti iyo maamul goboleedka Puntland. runtii waxa haatan waxa iskhilaafsan meeshaan ma leh heshiiska anaga Puntland aan la galno waxa ah in ciidamada badda xero looga sameeyo Puntland lagu tababaro taasna waa socotaa waxaan hadda Ingiriiska iyo aan kala hadalno ku jiray Nederland waxa weeye arrinta Djibouti laga sameeyay horta waa arrin la saxay January 2009 xataa dawladda inta arrintaasna waxa weeye meel in laga sameeyo information center ah lagu ururiyo wararka yani xogta inta marka la afduubay meelaha lagu afduubay waxyaabahaas wax iskhilaafsan male runtii dadkaasi qada u dhigay ay maanta wada yeesheen ra'iisul wasaaraha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Dr. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo sidoo kale Walad Cabdalla ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo Javier Solana oo qaabilsanaha midowga Yurub ee arrimaha dibadda iyo ammaanka ayaa waxa uu ku soo gabagaboomay waxay ku tilmaameen inuu yahay asbaab garad iyo sidii ay degdeg wax uga qaban lahaayeen xaaladda dalka Soomaaliya ee cakiran haddaba xarunta midowga Yurub waxay ka mid tahay xarumaha dunida ugu awoodda badan ama dunida looga taliyo ee quwadda ku leh waxana had iyo jeer tan iyo sanadkii 1991 markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliya ku soo noqonaya amaba imaanayay madaxa matalaysa dalka Soomaaliya waxna su'aasha isweydiinta mudane ay tahay marka laga tago kulamada ay midowga Yurub xarunta imika ay kala soo hadlayo ku dhexmara madaxda Soomaaliya soo martay tan iyo intaasi iyo midowga Yurub madaxdeeda maxaa saa'id ah oo wax u tari kara ummadda Soomaaliyeed oo wax qabad muuqda kana bixin kara dawlad la'aanta ragaadisay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ee dawlad la'aantu ka jirto 19 sano su'aashaasi waxaan u deenayaa waxa ka soo dhalaali doona kulamada ay yeelan doonaan dawladda ku meel gaarka ee waqtigeedu 2 sano yahay iyo midowga Yurub ee iyagu imika kaga dhawaaqay xarunta imika aan ku sugannahay inay u helayeen wax u qabashada ummadda Soomaaliyeed